عيدك كافيري قريه وحلا ما تاكل والله صعب الله ودبريا صعب الله ودبريا wax kala ma jiro raay ooyay ciidanka goboleedka Jubbaland oo aan saaki soo gaarnay salaam qolay 14 waxaan diyaar u nahay oo ciidankan diyaar u yahay in dalkiisa iyo dadkiisa iyo ma garanaysaa oo wax la qaybsan oo ciidan hadii la yiraahdo amnigu shaqo ku leeyahay amnigi uu ka shaqeeyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta aad noo sameyseen waana idinka mahad celineynaa ciidankan waa ciidankii maamul goboleedka Jubbaland haddana wuxuu diyaar u yahay waana Soomaali dadka Jubbalanta waa Jubbaland dadku laakiin hadda Jubbaland iyo Soomaalida waxa waaye wax kala maarma ma aha Soomaalinimada marnaba lagama tagayo waa wax jira way marka waxaan diyaar u nahay ciidanka waa ciidankii maamul goboleedka Jubbaland kuna soo biiri ciidankii federaalka wuxuu diyaar u yahay صعب يا مريض wax ka qabto saddex diyaar u yahay inuu amniga wax ka qabto shaqadiisa dhinac ka gala ciidan hadii la yiraahdo siyaasad shaqo ku mal dhaqan shaqo ku mal amniga shaqo ku leenahay marka insha Allah aad baan ugu faraxsanahay ciidankani waa kana waa diyaarsan yahay sababta hadda keentay ciidanka iyo aniga wax ku maqo ma aha inaan dawladda Soomaaliya lambar ka helna ma aha inaan dhaqaale helna 20 sano ilaa 15 sano oo inta caawinaysa ay jirin oo xagga ay badda naga taagan tahay oo xagga ay shabaab naga taagan tahay oo xagga xuduudii Kenya ay tahay oo xagga ay ma garanaysaa ninkii odiga ay naga taagan yahay iyo xaalad adag baan soo marnay meel aan u ciirsanaa ma haynin haddana isma dilin kalama tagin argagixisada kuma biirin waliba ciidankan iyo mid kale oo ka badan oo aan ka soo tagay in badan oo ka mid ah cid macnaha arrimaha amniga ka caawinaysi waa yartahay ciidankan waxa way waxa sameeyay ninka gudoomiyaha degmada Badhaadhe asagana xukumo insha Allah hadii Ilaahay idmo waxaan diyaar u nahay muhiimadeena ma aha lambar muhiimadeena ma aha ma garanaysaa lacag muhiimadeena ma aha jaanis muhiimada aan u socono waxa waaye hada meesheenan ku samarsaneen ninka inta joogo iyo ninka kulbiyo joogo iyo ninka hoosingo joogo iyo ninka buurgaab joogo iyo ninka kudhaa iyo madhawo joogo waa Badhaadhe intaba nin walba meeshiisu ku dhibnaa wax kasta akhbaarta waa iska warhayn xagga maamul goboleedka caaw fiican oo amni kama helaynin dawladda Soomaaliya weligeeyba indhama saarin oo dalkan ka shaqeynaysa aniga siyaad marna ma soo gaarin waxa kala telefoon ka fiirsanaa oo ay ku dhacaan marka dad niyada si ugu qoostaan baa aad baan ugu faraxsanahay in ma garanaysaa saaki taageero helnay in waxa waaye amniga in wax laga qabto nimanka argagixisada deegaankan waxa dhibta ku haaya oo cunuqabateeyay oo dhibaateeyay cid ka qabatana waay waa nimanka argagixisada dhibaatay ku sameeyeen dadkan waxa waaye degmada Soomaaliya ugu macnaha badan way degmada haddana marka la gudub gala shacabkeeda iyo amnigeeda yaani waxaan macquul ahayn ciidankan ciidan kale ka badan iyo mid kale inta ugu timaadeenba inuu inta soo gaara waxa sabab u ahaa ninkii sameeyay oo ah gudoomiyaha degmada Badhaadhe fanax aad buu ugu mahadsan yahay uu soo dadaalay annagana waa la samirnay maanta sidaan shalay u heeran maanta u nahay mar haddaad idinku nagu soo biirteen alxamdulillah waxaan rajaynaynaa aan ku soconnaa shalay wixii aan waynay maanta inaan helno oo meesha halka iyo halka aan iska fadhin jirnay tabar baan ugu heysay inta ka ilaali xagga ka leex xagga soo mari saaki waxaan u malaynayaa Badhaadhe in loo socdo oo halka laga duulayo halka la marayo oo nimankii odayaasha ay cagta la marinayo oo degmada 20 sano 30 sano wixii ay weysi haday horumar tahay iyo hadii ay amni tahayba inay heshaan rajaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii dambe dib aan isu wareysanaynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh hadalku intaas ku eegyahay